بسم الله ورواد السلام يا ما يوفرنت يقرسي دار على السوي وانت لا ركتيه أنا جوا نفك شنية هبل قدروا عيروا يا الله وريد أساسية أيا فرنتن حلقا وقدر أيا طود يرو عوان يرد جيستي وقت بدنا نجوا نهيلين أيا وحا طود وذاك ها لمن لن يرى هو يساقي دارود يهوية ولي هبل قدره سؤاشا dood ka bilaabatay waxay niman daaroodan dhulbaanta ahayn daarodka kala ayaa waxay yiraahdeen nimayow qadiyada reer SSC iyo dagaalka la aanood iyo sool ka socda iyagu laba reer way ba halka garanayay ka dagaalamaya waa dhulbaanta iyo fikshin dhulbaanta waa jifin naga mid ah annagu hiliyo waa la garab istaagnay ayadu ku fikshin garab iyo gaashan ma waxaad ugu noqon weydeen ma soo socotaan markaani oo dhalinyarada habargidir marka hore xogaa koow hadlay afgabaadsi baa ka ahaatay inay hadalka ku qurxsanayeen si wanaagsan bay markii hore hadalka u dhigaan laakiin daahir calasow iyo rag kale waxa weeyaan shaka aan loo dirsan ayay faraha kula jireen oo ah inay daarood yiraahdaan isaaqow kaalaya idila cayne waxaan si la yaabanahay waxa weeye anigu isaaq gartay Somaliland iyo magaranaysaa iyo dagaalka halka ka socda iyo Somalilandnimadooda difaacanayaan daarood gartayo daaroodka kale hiilka iyo magaranaysaa tolkaba wax dhulbaantay iyo dhulbaantaba gartay oo maanta waxa weeyaan isaaq iyo daarood doodooda waa wax la dhageysan karayo laakiin qabiilka dhan waxa weeyaan magacii iyo sharafkii iyo karaamadii isagu uu lahaa ka gudbay aan afkii fakashini iyo tolkoodna aan ku hadlay magaranaysaa hiilkoodu cay inay dhulbaanta iyo daarood ayaan noqdeen baan la yaabana golaha magaranaysaa magaca reerka halka ku matalay waxa weeyaan ninka gaalka cayashadeeda jooga waxa uu isaaq ku kordhin karo baahantana yeeli karaan la yaabana waxa la su'aashaad ka meeraysanaysan horta meesha way ku jirtaa waxaan seedilaa niman yawaanu qarniyaan meesha ku noolaa ilaahay baa halka igu beeray dadkaas deegaanka degan dhulbaahantana ilaahay baa magaranaysaa iska xijiyay dhiig iyo dhaqan iyo dhalashaba waa naga dhaxaysa iyo dhul waxa weeyaan magaranaysaa fakashini garaadna meehi yaani waxaan ahay nin haybtiisa iyo magaciisa iyo masabkiisa iyo magaranaysaa iyo sharafkiisa halka ku jooga adigana kugu matala sharafka hawiyana ku ilaaliya ayaana meesha dagaal baa maanta ka socda intaas qarniyaan joogin anigu kumana soo calaacalin anoo social media ka calaacalaya ama ka cabanayana lama arag wax kastoo meeshaan magaranaysaa kala kulmana waxa weeyaan taanu qabiil baan ahaa xiniyaha igan saarnaa magaranaysaa meel la kamana soo caytamin kamana caban maanta waxa weeyaan qabiil isma hayno maamul baanu is haynaa maamulka aanu is hayno shalayto anigaa idhi kaalay anaa doonaya inaanu wax isku darsanno anigaa u yeedhay anaa soo horkacay waxa weeyaan sidaa dhulbaantaba magaranaysaa shalay ugu jiray banaana uga mid ahaa inaanu wax wada yeelanaan doonayn taanu nahay fikshini deegaankaygaanu ku soo dhaweyn laakiin waxba waanu wada yeelan weyn iska daa wax wada lahaanshe adeer haldoorkaygii iyo nabaddoonkaygii iyo aqoon-yahankaygii baa laascaanood ku nagaan waayey adeer gacaliya in habeen walba afka loo duubto uga tegaya
sidaa daraaddeed maanta dee annugu kacdoon baa dhacay deegaankaygina waxaanu doonaynaa dee adeer shalay baa adeer qasab kumaad iman xoogna laguma iman xoognana lakuma qabsanay annagaa keennay soo maaha maanta annagaa nidhi adeer naga baxa haddii maamulkii bixi waayeen adeer xabad baanu iskaga saaraynaa laascaanoodna kaga saarnay deegaamada inta hadhayna kaga saaraynaa horta ninka hadalkaa kuleehayo idinlehi waa nin fikishinaya waxaanse leeyahay nimankiin kale ee meesha ka hadlayay nigo meesha xiniyo salaax loogama baahna anigu hawiye haddii uu maanta iskeenana oo ii soo gurmadana dee maamul dhan baanu sahaynaa dhulkaygii iyo deegaankaygii iyo halkii aan u dhashay bay xabaddu ka socotaa ma garatay gurmad iyo garab iyo gaashaanba hawiye waa uga baahana waxaanse leeyahay nimayo haddii aad dee ismuujisaan oo garabkayga ka muuqataanna dee nimayo kuma ammaanidina tol jira haddii aydan waxay tarinna dee nimayo tol jira marna idii calaacali maayo marna idii caban maayo waxaanse leeyahay tan waa isku baranaynaa unuu dee taariikhun baa ka hadhaysa nin haddaanu iga hadhayna maanta anigu anoo fikshinaya baan qadiyadda ACC u dhimanaya ku dagaalamaya kagana saaraya waxaan ku yidhi keligitaliska Muuse Bixi iyo maamulkiisaba ilaa deegaankayga waxaan leeyahay haddii ay ku dhibtay dhulbahante waa fikishini oo dhulbahante anaa hadda kule fikishinina waa dhulbahantana waa fikishino dhaqan iyo dhiig iyo dhalasha naga dhaxaysa haddii qadiyadda dee ay noqoto ACC in lagu dagaalamana meel aanu ku kala hadhaynaa ma jirto dhulbahanta hadday reeras hayaanna dee looguma tegi jirin uguna tegi mayno oo dee annagu dhulbahanta manihin iyo hartitoonna haddiise qadiyadda ACC ay noqoto adeer gacaliya ka u dambeeya dhulbahanta meesha uu lagu aaso baa ka fikishinina lagu aasaya ka u dambeeya dhulbahanta ka hadha halku ku noolaado baanu adeer gacaliya kaayaga hadhaana ku wada noolaanayaan halkaa sidaa ku bishaarayso aad baan idin salaamay anoo ku hadlaya afka dhalinyarada oo beesha fikishinina dee adeer saasaan idin leehay ka dhaqanka iyo waxaan ku wuri waxgaradkana dee adeer suldaankiis wuxuu joogaa xamar habar gidir iyo hiraab iyo hawiyana way is arkayaan dee waana isku baran doonaa tan waxaad wax ka qaban karaysaan maahee niman yahow ama meel istaaga magaciina iyo hawiyenimadiina saarnaada ama ceebta ha noo soo jiidine naga daaya dockayeedhkan iyo dhaadhaadan iyo waxaanan garanayn ee aad meelaha ka dhuraysaan waad isalaamayaan iyow haddaa shago ka soo baxay oo waxaasan codkooda dhegeysa iyo hadalkooda dhegeysa khayr baa idin rajeenaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu